waata bal ka waran xaaladda tukaraq iyo xiisadan ka soo cusboonaatay ee u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland meesha way isku dagaaleen saaka ma garan waa tahay Somaliland waxa weeye Puntland uu aagaas isku haleeleen xabaduna hadda ay istaagtay ma garan waa tahay ciidanka Puntland ee meesha joogay oo xoogaa ahaa adigu ciidankaas gawaari waa laga gubay meeshana waa laga qabsaday ma garan waa tahay ciidanka laga qabsaday meesha isla markaana gawaarida laga gubay waa kuwe ciidanka gawaarida laga gubay waa ciidankii Jimcaale weeye oo meesha joogay iyo kuwa xoogaa ka yimid dhankan madaxtooyada Puntland ka yimid lagu yiri oo meesha marayay dhabada waa tahay haddana Somaliland ma meesha haysato ma garan xilli may ahayd ama saacad may ahayd markuu dagaalku bilowday adigu lixdii waxa lagu dhoriyo Flanders waa tahay ciidanka Somaliland ee markaasi deegaanka qabsaday halkay ka yimaadeen oo ay hore ugu sugnaayeen sadigooda aaga adigu de gambara iyo way ka soo ruqansadeen waxana talisay ku leeyihiin anaga waxa weeye deegaankaas aan joognay haddana aaga iyaga haysta marka waxa weeye hadda wax bad go'soo weeye laakiin aaga hadda ku sugan yihiin wax kale oo hadda la sheego oo Puntland gurmada ka yimaado waxa weeye wax difaaco deegaanka doonayeen difaacana oo rasmiina hadda ilaa laba hayo ma garan waa tahay dagaalku imisu socday ay Somaliland ku qabsatay tukaraq adigu deynta hadda qiyaasaan wada garanaysaa waqtiga aad soo wacay iyo waqtiga aan ku sheegay inta u dhaxaysa iyadoo ay shaqo hadana ciidanka Somaliland si toos ah in weerarka loo fuliyo waxa weeye informationadiisa ama transparency si toos ah militariga ma isticmaalo macnaha ciidanka loo joogay wax yar baa ku filan wax inta la dagaalamo wax yar marka adigu hadda rasmiga oo xaqiiqada waxa weeye ciidankaas weyn aaga isaga haysta wala kastankii wala tukaraq wala deedida wala dhagaxa aaga soo dhamaan gudbooda isaga haysta ka timaado gurmadana anagu ilaa hadda maayno hadduu dagaal dhaco khasaare ayaa la filan karaa ma ka war haysaa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo dadka rayidka ee deegaanka soo gaaray ama ciidamada isdiriray hadda khasaare rasmi loo sheegi karo waad garan kartaa dagaal markuu dhaco naga warrama khasaare macnaha maxaa dhacay ma oran karo because waxa weeye marka kala fogmado baa information la bixin karaa xaaladna sida weeye deegaanka ku soo gabagabeyn oo kusaan ma jiraan haatan wax xiisada colaadeeda oo meesha ka socota ama gurmadyo labada dhinac soo gaaraya wala doonaya maxaa ciidanka Puntland ilaa xuduudaha asagana waa sheeganaa waxa weeye anaga dowladka waa yiraahan information rasmi ah oo military attack laga hayo wala hadda waxa weeye waxa soo beegay Somaliland waxa soo beegay waxa weeye madaxweynaha federaalka meesha soo degay oo waxa weeye dalka weyn halkaas oo aan la isaga ka gaabiyay Puntland marka laga yimaado dalka isaga dowladda waxa weeye shaqadii loo baahnaa oo deegaamada tilmaamo maxaa la rabay in loo dhiso oo awood yeesho waxa weeye maanta in soo weerarada Puntland koobay ka tahay federaalkuna isla waasaas oo kale ma dhaawan ciidankii Puntland ee tukaraq laga soo saaray laga qabsaday halkay hadda ku sugan yihiin ciidanka Puntland tukaraq laga qabsaday waxa weeye ciidan saxsan ah oo ciidankii Jimcaale waxa isagana hadda waxa weeye naaga hadda gool kolay qayb ka dhacday qayb xagga buuraha aragtay lagu leeyahay hadda xaaladu marka sida weeye warkaas ku dhintay ugu dambeyntii shacabka cabsi ma soo gaarto oo dagaalkan la xiriirta sidee soo arkaan in tukaraq ay Somaliland qabsato shacabka deegaanka tukaraq shacabka markii lagu soo diro macnaha aragtida ma leh shacabka soo ma ka joogo markii uu leeyahay waa la qabsaday